Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaashayda qiimaha iyo qayaalow meel kastood caalamka kala joogtaan. Sanad wacan oo wanaagsan. Kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno waxbarashada farsamada gacanta ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo waxyaalaha hortaagan bal in laga hirgeliyo Jamhuuriyadda Somaliland. Waa maxay sababtan keentay in iskuullada farsamada gacantu ay dib u dhacaan muddo 30 sannadood ah iyadoo ay tahay aqoontii saxda ahayd ee lagaga gudbi lahaa xaaladaha faraha badan ay ka mid tahay shaqo la'aanta Jamhuuriyadda Somaliland ka jirta. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac. Sanad wacan oo wanaagsan mar labaad. Bal waxaanu ku eegaynaa iskuullada farsamada gacanta ee Jamhuuriyadda Somaliland haysato xilligan. Waxaa la hubaa ama inta la ogyahay waa iskuul hal farsamo gacmeed oo ku yaala magaalada Hargeysa. Iskuulkii weynaa ee loo yaqaanay Technical Institute ee Jarmalku dhisay kuna yaalay Burco uu burbursan yahay muddo 30 sannadood ah. Dibna looma dhisin. Jaamacadaha koolajyada inta laga qalin jebinaya ma aha kuwii goobta shaqada Jamhuuriyadda Somaliland wax ka tari lahaa, mana aha qaabkii loo qalabayn lahaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland ee 14 sannadood ama 16 sannadood wax soo baranaya. Waxa uu egtay gacmo daalisun ama in waqtiga laga luminayo. Inkastoo ay dadaaleen dhalinyarada iyo waalidiintuba, haddana xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland marnaba isku maydayn inay ka hor wadamada Ghana, Nigeria, Algeria iyo Kenya ayaa waxay isku dayeen bal mar un inay dhalinyaradooda u dhaqaashiyaan dhanka shaqada, waxaana bilaabeen iskuulo farsamo gacmeed. Taasaana waxay keentay in suuqa shaqada iyo shaqaaluhu uu isbedelo. Dowladda Jarmalku Somaliland waxay ugu ballan qaaday 3 milyan iyo badh inay ka bixinayso Somalilandna ay ku darsato $500,000 oo keliya. Laakiin taa may samaynin. Dowlado fara badan waxay kula taliyeen haddii ay doonayaan dhalinyaradooda inay wax ka bedelaan inay ka daayaan jaamacadahan tiiriga loona dhaqaajiyo dadka dhanka farsamada gacanta. Somaliland waxay leedahay bad dhererkeedu dhan yahay 850 kilomitir. Doonyahana lama samaysan yaqaano. Waana taa ciladaha jirta. Shirkadaha dhismayaasha dhisa oo xilligan ay yihiin goobaha ugu faraha badan ee dadku shaqooyinka ka helaan. Shaqaalaha u dhisaya guryaha casriga ee gelinaya qalabka casriga waxaa laga keensadaa dibadda. Waxaa la keensadaa Hindi, waxaa la keensadaa Kenyan, waxaa la keensadaa Pakistani, waxaana la keenaa Bangladesh. Inkastoo iyaguna xaq u leeyihiin inay Somaliland shaqo ka helaan oo shaqo tagaan, laakiin waxay ahayd muwaadiniinta Jamhuuriyadda Somaliland in laga horeysiiyo. Laakiin meesha xirfadii baa ka maqan. Haddii 30 milyan lagu maalgeliyo 7 iskuul ama 5 iskuul farsamo gacmeed, wax badan baa isbedeli lahaa muddooyinka ay dadka ku qaadanayso inay shaqo helaan. Doonyaha lama samaysan yaqaano, calafka xoolaha lama beeri yaqaano, fooqyada iyo dabaqyada dhaadheer qalabkii lagu sameynayay qaabka loo dhiso way ku adag tahay in laga helo geyga Soomaalida. Tusaale yaraan idin siiyo. Shirkadda Tide samaysa ee ku taalla magaalada Burco ayaa waxay u baahatay chemical engineering. Waxay ka weyday Somaliland, waxay ka weyday Puntland, waxay ka soo weyday Muqdisho. Waana taa cilada jirta. Jaamacadaha lagalama tashado waxay soo saarayaan. Jaamacad kasta wixii iyadu u baahato bay soo saartaa. Dowladda dhexena waxay u diyaar garowdaan inay xafladaha ka qayb gasho. Saameyn kale oo ay ku leedahay ma jirto. Halkaana bal waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii gaarka ah aynu ugu talagalnay farsamada gacanta ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo suuqa shaqo la'aanta ee taagan suuqyada isdiidan ee ka jira xilligan Jamhuuriyadda Somaliland. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac. Waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanad wacan oo wanaagsan meel kastood adduunka ka joogtaan. Sinki ilaahan ku bilaabaya
bulshadii xayaantan ugu baaqayaayo inbadaa jibaaxdan baadi doonayaayo aqrabay lahdeenan ku biidhaadiyaayo dabiibtii baraadan ku baraarujaayo dhalintii baxdowdan baraya afkoodo شعلا عقا فاقا ضمنا وحيا بافي 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 يمكن قراعو بافي 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 يمكن قراعو بافي aynu bayni raahne bigdi aynu bayni raahne bigil weeye heestanu dhaqankii baliiqdan balitaarayaayo dhaqankii baliiqdan balitaarayaayo bandigii caruurtan ku bilaawayaayo badi waalidkoodan barbarkeenayaayo habakii bajaaban biladsiinayaayo badbarkii ciyaartan guwaboodayaayo biligii dafeeniyo kufjibaanu xinayaa